anagu markaan gudaha u soo galnay xabaalaha su'aal ayaan weydiiyay saaxiibaday. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta sharafta badan. Ramadaan wanaagsan. Waxaan maanta ka sheekeyn doonaa sida qaybtii labaad. Anigu waxaan ahay Cisaam. Waxa inoo marisay qaybtii hore anagoo odaygii meydka qalin ku sameynay. Waqtigaasna saaxiibada ay dhahan qabrigiisa ayaan ku celin doonaa. Aniguna waqtigaas waxaan ka soo baxay qolkii isla markaasna aad ayaan isku buuqsanaa. Waxaan isweydiinay su'aalo fara badan. Anigu waqtigaas waxaan u socday qolkayga su'aalo fara badan ayaan isweydiinayay iyo waxyaabaha dhici doona. Ugu dambeyn anigu qolkayga ayaan iska galay. Subaxii marka la gaaray anigu waxaan u yimaaday asxaabtayda. waxaan ahaa mid iska ilaaway falkii foosha xumaa waxa la sameeyay. isla waqtigaas asxaabtayda waxaan weydiinay su'aalo aad u fara badan. iyaguna waxay ahaayeen su'aal kasta oo weydiiyo kuwa si sax uga jawaaba. waqtigaas anigu waxaan soo galnay fasalka. waxaan noo yimaaday macallinkii noo dhigi lahaa xiisada. macallinku waqtigaas wuxuu ahaa mid cashirka noo sharaxaya weliba si aad u heer sare ah. macallinku waxauna weydiiyey su'aal waqtigaas waxaana dhahay yaa ka jawaabaya su'aashaan weydiinayo ardayga garnayo farta taag. isla waqtigaas aniga ayaa farta taagay waxaana ku dhahay macallin aniga ayaa ka jawaabaya su'aashaas. su'aashii waan ka jawaabay macallinkina aad ayuu u yaabay. ardaydii dhammaan afkayga gacanta saareen waa ayna yaabeen su'aasha sidaan uga jawaabay. macallinku wuxuu dhahay ardaygaas aad ayuu u mahadsan yahay su'aashiina si qurux badan ayuu uga jawaabay. asxaabay maalintaa wixii ka dambeeyey darajooyinkaygu waxa ayaan kuwa kor u soo kaca. maalmaha ka mid a waxaan u yimaaday asxaabtayda. isla waqtigaas waxbay akhrisanayeen. saaxiibadii waxa ku dhaheen adigu waxaa tahay wiil aad u wanaagsan maxaa yeelay sirtaydu waad qarisay cidna umaadan sheegin. anigu waxaan ku dhahay saaxiibayaal taasaa ka uruurina maxaa yeelay aniga kor ayaad ii soo qaadeen darajooyinkaygana maanta 100% ayay kor u soo qaadmeen. waad ku maasantiin waxaad ii samayseen. saaxiibkii Cabdi ayaa hadlo wuxuu dhahay anigu waxaan moodaynay inaad sirteeda dadka la wadaagayso laakiinse qof wanaagsan ayaa tahay. caawa laga bilaabo waxaan ku geyn doonaa dhanka iyo xabaalaha isla markaasna wax badan ayaan ku tusi doonaa. anigu arrintaa markaan maqlay aad ayaan u naxay waxaana ku dhahay may saaxiib anigu xabaalaha iyo waxa waan ka cabsadaa ma tagi karo. saaxiibkii Cumar ayaa aad u qoslo wuxuu dhahay adigu dhakhtar ayaa tahay qalin haddana waxaad leedahay qubaraha ayaan ka cabsadaa adiga war maxaa kaa khaldan sidee wax kaa yihiin. anigu markaas waxaan ku dhahay waa si wanaagsan waan idin raacayaa. isla waqtigaas markii habeenkii la gaadhay saaxiibkii Cabdi ayaa yimaaday waxuu naga soo kaxiyay qolkaygii. waqtigaas gaadhigiisa ayuu na saaray waxaan u socday dhanka iyo quburaha. isla waqtigaan soo gaadhnay xabaalaha gaadhiga ayaan ka soo degnay waxaana si wanaagsan noo soo dhaweeyey ninkii ilaalinaya xabaalaha. anagu markaan gudaha u soo galnay xabaalaha su'aal ayaan weydiiyay saaxiibaday waxaana ku dhahay muxuu yahay ninkan idii ogolaaday inaad xabaalaha soo gashaan. waxay dhaheen ninkani waa caadi waxoogaa yar lacag ayaan siinaa wuxuu noo ogolaaday wax kasta oo xabaalaha ka dhex samaysanno inuusan nagu qabsanin. markaan hawshada dhammaysana ayar ayaan iska baxnaa. anigu arrintaas markaan arkay waan la yaabay waxaana ku dhahay oo hadda raalli ayuu ka yahay miyaa wax kastoo halkan ka dhex samaynayno. waxay dhaheen haa maxaa yeelay isagu lacagtiisa ayuu ilaashanayaa sirteedana bannaanka ma keeni karo. anagu markaan wax kasta ka samaysana halkan waxaan u imaanin aan ka qaadano ayar ayaan iska baxnaa dhib la'aan. waxay dhaheen haye saaxiibayaal waqtiga ayaa inaga lumaya ayna mariya aan raasina xabaal wanaagsan si aan u dhamaysano hawsheena. isla waqtigaas anigu waxaan arkay xabaal waxaana ku dhahay xabaashan ayaa cusub ee kaaliyaan eegne. saaxiibkii Cumar ayaa eegay xabaashii waxa uu dhahay maya saaxiib xabaashan waxaa ku aasan qof aad u weyn. isla waqtigaas markuu hadalka maqlay Cabdi wuxuu dhahay qofka xabaasha ku aas waa inuu ka yaraado da'diisu 40 sano maxaa yeelay in waxaan u baahanahay qoftiisa ay ka hooseyso 40 sano. waxaana soo dhow waqtigii imtixaanka jaamacadda aan gelinayn ee laguma filin kaliya ta qof kale inaan qaadano
waxaan u baahanahay 3 qof oo mid inaan qaadano si aan baaritaan fara badan ugu sameeyno saaxiibkay Cumar ayaa wuxuu dhahay si waqtiga aan u ilaalino waxaan u baahanahay qof kasta inuu xabaal raadsado isla markaasna waxaan ku kala baahnay xabaalihii anigu waxaan aamid raadsanaya xabaal ay waqtigiisa dhamayso waxaan raadinaya waqti aad u fara badan ugu dambeyntii waxaan helay xabaashaana waxaa ku qornaa waxyaabo aad u fara badan waxyaabaha ku qornaa qabriga waxaa ka mid ahaa adigu waxaa tahay qof aad u badan maxaa yeelay mar walba hurdada ayaad naga kicisaa maanta aad wada dhimanaysaa nolosheeda jaxiimo ayaad ka dhigtay adigu jaxiimo aad waqtigaas anigu waxaan ahaa mid ku ifiya tooshka isla markaasna aad ayaan u naxsanaa waxaan isweydiinaya qofkani muxuu yahay qof la dilay miyaa qof nooc kale miyaa su'aalo fara badan ayaa isweydiinaya laakiinse waxaas dhahay wax kasta ha dhacana waa inay ogaataa qofka meeshan ku jira qofka xabaasha ku jira waxa uu qof aad u da'weyn maxaa yeelay waxa uu dhashay 1940kii waxaana la aasay 2019kii waxaan isweydiinayay qofka intaasoo dhan nool bini aadam miyaa waqtigaas maskaxayda waxaa ka dhex guuxay su'aalo aad u fara badan waxaan isweydiinayay xabaashan sirta ku duugan isla waqtigaas waxaan bilaabay inaan xabaashii qodo markaan qoday xabaashii aan arkay qof ku jiray waxaan maqlay cod aad u dheer codkaasi waxuu lahaa adigu waad dhimanaysaa maanta noloshaadina halkan ay ku soo gabagabooday aan waqtigaas aad ayaan u naxay majarfadina waan iska tuuray isla markaas anigoo ooya ayaan soo cararay waxaan lahaa saaxiibayaal ibadbaadiya caawiya iga qabta saaxiibkii Cabdi ayaa iga hor yimaaday waxaan dhahay saaxiib maxaa ku dhacay maxaad la qeylinaysaa maxaad aragtay isla waqtigaas waxaan ku dhahay anigu waxaan arkay waxa aad u la yaab badan idinku wax ma aragteen waqtigaas Cumar ayaa qoslo wuxuu dhahay bal feeri kan waa mid aad u fulaysan maxaad noo saraacay kan soo kuma oranayna soo raacin waqtigaas xabaashii aan qoday waxa ka soo baxay islaan aad u da'weyn waxayna ku qeylinsay soo baxa aanu qabana maanta kuwan maxaa yeelay maalin kasta iyaga ayaa hurdada naga ciyaara anagu waan naxnay waana soo yaacnay waqtigaas waxaan lahayn in yaacsiya xilligaas waxay bilaabeen dhammaan dadkii xabaalaha ku jira inay ka soo baxaan waliba dad aad u fara badan ayay ahaayeen Cumar ayaa hadlo wuxuu dhahay saaxiib Cabdi maanta xageedna keentay maxaad noo keentay goobtan anaguna waqtigaas waxaan bilownay inaan yaacno maxaa yeelay naftu waxay kugu aamintaa oran anagu waqtigaas aad ayaan u ooynay waana yaacanay mid kastaana cagaha ayuu wax ka dayay waqtigaas islaantu waxay ahayd mid dadkii xabaalaha ku jirtay qacanta soo qabata iyadoo mid uga soo saaraysay anagu waqtigaas waxaan u yaacnay dhanka iyo albaabka isla markaasna waxaan aragnay albaabka oo xiran arnasiiba waxaan isku dayaynay waqtigaas inaan albaabka xoog ku furno anagoo qacmaha ku jiidanay laakiinse albaabku waa noo furmaayay waxaan dareemay qof inuu lugteeda haysto isla waqtigaasna aad ayaan u naxsanaa hoosteeda ayaan eegay waxaanan arkay qof mid oo lugtay haysta aniguna laag ayaan u dhiibay anigu waqtigaas waxaan u soo caray dhankaya asxaabtayda waxaana u yaacnay dhankaya qolka ninka waardiyaha isla markaasna waan ku qaraanay ninkii waardiyaha ayaa naga furay waxau dhahay maxaa dhacay sidee wax u jiraan anigu qolka ayaan gudaha u galnay isla waqtigaasna ninka waxa waa midna weydiiya waxyaabaha dhacay iyo waxaan la qeelayno waxauna weydiiyay away saaxiibkii nin kale saddexaad anagu waxaan arnay waqtigaas inuunan la socon Cumar waan naxnay waxaan isweydiinay xaquudiga hadhay Cumar waxaan waqtigaas weydiinay si aan u soo badbaadin karnaa saaxiibkii Cabdi ayaa wuxuu qaatay bud aad u weyn waxaan dhahay waxaan soo badbaadinayaa saaxiibkii Cumar maxaa yeelay isaga waxa laga yaabaa inuu dhibaato ku jiro anigu waxaan ku dhahay saaxiib isteeji Cumar waa iska iman doonaa waqti yar ayaan sugaynaa hadalkayga ayuu Cabdina qaatay waxaan ahayn anagu qaar ka eegay daaqada waxa dhici doona isla markaas waxaan aragnay saaxiibkii Cumar oo hal mar lagu soo xoomay dadkii reer akhraadkana ay dib ku soo dhaxeen anagu waan naxnay laakiin Cumar waxa waa mid ku guuleystay inuu ka soo baxsado isagoo soo cararay oo qolkii ku soo dhow ayaa hal mar waxa ka daba timaaday islaantii waayeelka ahayd gabigiisa weynta korka u qaaday ayaa cunaha qabatay waqti badan ayay cunaha haysay saaxiibkii Cumarna nasiib dar halkaas ay nafti kaga baxday saaxiibkii Cabdi ayaa qayliyay waxaanu lahaa islaanyahay duqlaasiida saaxiibkii maxaad ku samaynaysaa laakiinse waxaan dareennay inuu dhintay Cumar ana waqtigaas aad ayaan u warwarsaneen waxaan isweydiinay idinkana maxaad ugu samayn doonaa reer akhraadkani isla waqtigaasna Cabdi aad ayuu u warwarsanaa ninkii waardiyaha ayaa hadlo wuxuu dhahay anigu weliga inta halkan joog waxaan oo kale ma arag maxaa dhacaya idinku maxaad samayseen talow sanado fara badan ayaan anigu halkan joogay laakiinse maanta waxa dhacaya waa wax aad iigu cusub aniga ayaa hadlo waxaan ku dhahay wax kasta waxay ku dhacayaan sababtayda maxaa yeelay anigu waxaan qoday gudaha ku jirtay islaam waayeela isla waqtigaasna
anigu ma aanan garanay waxay tahay. ninkii waardiyaha intuu aad u naxay wuxuu dhahay idinku wax wanaagsan ma aydan samayn maxaa yeelay islaam waayeel ayaad nagu soo kiciseen. islaantani markii ay dunida joogtay waxay ahayd mid aad u dhib badan maxaa yeelay dadka oo dhan ay dhibi jirtay. iminkana wax wanaagsan ma samayn doonto waxyaabo aad u fara badan oo xun ay samayn doontaa. waxau dhahay idinku maxaa saa u samayseen waxaad qodan jirteen xabaalaha ka hooseeya da'dooda 40 laakiinse maanta maxaa samayseen islaan aad u waayeel ayaa soo saarteen. saaxiibkii cabdi ayaa hadlo wuxuu dhahay waardiye ninkani waa uu ku cusub yahay xabaalaha maxaa yeelay maanta ayaa ugu horreysa isaguna waxaan ma uusan garanayn. asxaabteeda qiimaha badan qisada qaybta labaad halkaasi aan ku daynayaa. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalada halkan aan soo gelino. qisada qayb saddexaad ayaan soo gelin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan. haddii aad ka heshay kanaalka welina aad ku soo biiro ka mid noqo asxaabta qiimaha badan halkan aan ka wada soconno. siina shaargare muuqaalka si aan u helno saaxiib wanaagsan sida adiga oo kale. ramadaan wanaagsan cibaado suuban iyo camal saalix ayaan dhammaanteen noo rajaynayaa. sidaas iyo nabadgelyo.